السلام الله عليكم markaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska ala ula barteen wararkii ugu dambeeyay waxa xalay magaalada Muqdisho ka dhacay dhacdo xanuun badan oo loo geystay gabar loo magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo ka mid ahayd ardaydii sanadkan ka qalin jibiyay fasalka 12 Xamdi ayaa xalay waxa lagu gufsaday magaalada Muqdisho kadibna ragii kufsaday waxay kasoo tuureen dabaq waa kan Maxamed Ciise Koonaan oo ku booqday familkii dhacdada xun ku dhacday gurigooda oo warbixin ka soo diyaariyay halkan aan ku suganahay waa gurigii ay ka soo toosi jirtay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar aad u daayar kana mid ahayd ardadii dhameeyay sanadkan dugsiga sare kana qayb galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaaday wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka Soomaaliya waxay Xamdi la kulantay dhacdo xanuun badan taas oo u geysteen rag kuwaas oo kufsaday kadibna ka soo tuuray dabaq dhowr biyaan ah oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkan aan joogo waa degmada Daynile ee gobolka Banaadir waana gurigii Xamdi balse waxa laga dareemayaa xanuunka iyo murugada la qaybsanayaan ehelka halkan degan Xamdi darteed ay u murugoynayaan waxaana gudaha aan ku soo aragnay buugaagtii wax ku bara jirtay Xamdi oo ay ku dhameysay dugsiga sare abtigeed Gacal Xuseen Gacal ayaa wuxuu nooga sheekeeyay siday wax u dhaceen ragii kufsaday in la qabtay in kale isagoo si faahfaahsan uga warbixiyay Xamdi iyo wixii ay soo martay gabar reerkayna ka tirsaneed oo abti u ahay ayaa shalay si nabadgelyo gurigan hadda joogno uga tagtay xalayse xilli maqribadii meelahaas ayaa war naxtin leh oo aad uga naxna noo soo yeeray kadib markii gabadhaas noo sheegay in la dilay oo dabaq laga soo tuuray meedkeeduna uu yahay isbitaalka Madiina markaas kadib ayaa gurmadii orod bilownay ilaa xalay ilaa saaka CID-da iyo waxaan ka dawareegaynay isbitaalka Madiina gabadhaasi waxay ahayd gabar yar oo 19 jir 20 jir qiyaastii ahayd oo wax baratay ardaydii sanadkan dugsiga sare ka baxday ahayd hami fog lahayd inay wax barato jeclayd gabadha si xun ayaa loo galay dad aan wali garanayn tiradooda iyo waxay ahaayeen ayaa gabadha kufsaday kadibna dabaq ayaa laga soo tuuray ayadoo meedaan lagu soo wareejiyay marka dhibkaas aan ugu dhacay waana ka murugeysanahay aad ayaan uga naxnay wax aan sheegna hadda ma garan karno anigu sida laamaha amniga noo sheegeen dhowr qof ayaa kiiskan u xiran ma ogin inay yihiin kuwii sida dhabta u geystay ama dad kale la tuumayo marka ilaa maxkamadda ayaa baash u gudbinay ilaa 6 qofood hadda saaka xirneed oo kiiskan loo haysto gabadha meesha lagu dilayna aan kuugu dare waa dhismo dheer oo laga soo tuuro dabaqa oo hotel noo lagu sheegay inuu yahay meedkeeda meeshaas ayaa ma garan karno koor in la dilay kadib meedkeeda la soo tuuray iyo in iyadoo nool la soo tuuray laakiin gabadha nafna dhul lama dhicin sidaas ay ku geeriyootay habareertii soo korisay ayadoo 10 jira Xamdi oo idina la yiraahdo Xamdi Tahliil ayaa ka sheekaysay nolosha ay soo qaadatay Xamdi sidii wax u soo baratay iyo marxaladihii kala duwan ee nolosheeda soo maray gabadhii sida arxan darrada ah ay u kufsadeen rag manaxyaal ah waxayna ii sheegtay iyadoo aad u yaran loo keenay halkaana markii ugu dambeysay ay ku wada cunteynayeen oo ah maalinta habeenka la dilay maalintii ka horeysay in halkan ay wada fadhiyeen waxayna sheegtay in haatan ay aad u murugsan tahay Xamdi ana ayadoo yar la ii keenay ilmaha eedadooda ayaa dhashay habarteed baan ahay 10 sano muddo ku dhow bay aniga ila joogtay waxna aan baraayay qof ama aan ku naqaanay inay meel aado ama ay maalayaan u baxdo ama ay xumaato sameeydo midna ma aysan ahayn intii iskoolka sanad dugsiyeedka imtixaamada iyo la diyaarinayay oo hadda ugu dambeysay suuq ana aado suuqa ii raacisay waan ila iimaanaysay maalmahan guriga ay joogtay shalay subaxdii meeshan hadda ay fadhiin baan isku quraacnay aniga gabar ila dhalatay waan ka tagnay 4 saac ma la ahayd ayaan dhar u soo dhaqaa bayna tiri ayay jimcada kasta aadi jirtay dharkana ka soo dhaqi jirtay anakana taymku baan ugu dambeeyay ayna tiri ayaan aadayna qof aan hadda aan ogahay oo dhihi karo qofkaas ay xiriir la lahayd way jirto gabar wax oo shukaansanay laakiin hadda qof taargad iyo aan dhihi karo qofkaas sebel ah ma jirto waxaan codsanaynaa hadii cadaalad jirto oo wadanka cadaalad ka jirto qofkii dhibaatadaas gabadhan u geystay in sharciga islaamka horta loogu mariyo qof kasta oo naxaya hooyo walba oo naxayda aaba kasta oo naxaya qof kasta muslina ee danaynaya dhibaatada qabsataana kana ayakana inay qabsanayso hadda dadka dhibaatada sameynaya oo gabadhaas ku sameey gabar kasta Soomaaliya ku sameeysanaa ay ku sameey karaan gabadhan aad u daadayareed ubaxa ahayd laga qariyay dunida in ka qariyeen raggaasi arxalaawiyaasha ayaa waxa lagu dugay qabuuraha Bangeele ee ku yaala degmada Daynile ee gobolka Banaadir
banaadir halkaas ay ka soo qayb galeen ehla fara badan iyo dad is yaqaaneen xamdi oo isla dhiga jireen dugsiga